soo dhowaada saaxiibayaal muxuu yahay hadalka khiyaamada iyo meelkadhacaha heer qarameed ah ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayey somalilan iyo sidoo kale qaybo ka mid ah jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya faahfaahinta qodobkaas iyo hadalka la yaab kale ka soo yeeray xasan sheekh maxamuud ayaana muuqaalkan ku eegi doonaa balse marka hore waxaan ka codsanaya daawadayaal sidaan la soconno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu hadda markiisii labaad hogaaminayaa jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana lagu yaqaanaa kelmad ay dhibsadeen dad fara badan oo markaasi soomaaliyeed isla markaasna jecel midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ama aan dhaho guud ahaanba dadka soomaaliyeed intooda aan u janjeerin fekerka kala goynta dalka xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale munaasabadii 26 juun khudbada uu ka jeedinayay waxa uu kala soo muuqday tawaawac bariyo iyo hadal jircsan oo u diray dhinaca Hargeysa isaga oo dhanka kalena kelmadiisa caanka ahayd ee gobolada waqooyi isagoo ku celcelinaya mar kale kala soo muuqday shaashadaha kadib khudbad dheer uu ka jeediyey aqalka madaxtooyada ee fiila Soomaaliya xasan sheekh maxamuud gobolada waqooyi ma waxa uu yaqaanaa Hargeysa Burco iyo Berbera dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa baraha bulshada isku weydiiyay dhowr jeer oo hore oo uu hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya kelmadani waxay dulmi ku tahay qof kasta oo midnimada jecel isla markaasna ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliya iyo sidoo kale guud ahaanba Soomaaliya waxaana ay hiil iyo buunbuunin u tahay maamulka gooni-goosadka ee Somalilan haddaba waa kan madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya oo u cabanaya maamulka Somalilan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waxaan leeyahay marka walaalayaal maanta qarniga 20 oo dunidii isdoonanayso oo dalali isdoonanayaan oo markay ugu yaraadaan siyaasadda iyo dawladnimada waa halkeeda bal dhaqaalaha aan isku darsanno oo suuqa aan su furanno oo aan nolol fiican kor u qaadno ay ku wada haminayaan kala joogis annaga marna doonno ma aha waxaan rabaa walaalayaal waxa aad tirsanaysaan ama aad tabanaysaan horena waa uga garawnay haddana inaan ka garawnaan rabna ka daali mayna ka caajisi mayna dadkaasi wixii ay tabteen si allaala iyo sidii ay uga caloolfayoobaa karaan inaan yeelno ma ka daalayno mana ka caajisayno xaggooda na waxaan rajaynaynaa inaan garaawshiyo ka helno maanta waxay nagaa taagan tahay alaysa minkum rajulun rashiid war kuwii shalay inta xorriyadda doonay xor noqday ayadoo afartii kale ee Soomaaliyeed weli aanay xor noqonin yiri xorriyadda aan helna keligeen waxba nooma tartee Soomaali aan doonan fikir iyo talo iyo go'aan gob ah oo dad gob ah ay gaaraan u aha haddii fikirkaas iyo go'aankaasi uu la kulmay wakhti dambe xusuus murugo leh iyo xanuun tabasho leh tabasho xanuun leh oo la kulmay waxaan leeyahay walaalayaal ummadda Soomaaliyeed idinma badin idinmana yeelin haddii shakhsiyaad iyo xukun iyo talo dad markaas joogay ay sidaa u taliyeen maanta ma noola intooda badan ma noola haddii ay wax ka nool yihiin haddii kale maba noolaba dad cusuboo maanta talada maalintaas aan waxba ku lahayn haddii xanuun iyo dhibaato idin gaartay aan tala ku lahayn aan wax ka geysan ra'yigooda aan waxba ka ahayn bal diidanaa oo maalintaa ay yaallaan suugaantii ay ka tiriyeen tacaddiga meeshaa ka dhacaya sida ay u diidan yihiin waayo dadka Soomaaliyeed ee maanta jooga dowladda federaalka ee Soomaaliya ee anigu aan labada jeer odaga ka ahay waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego inaan aad iyo aad u jeclayn una dadaalnay wax kasta oo xanuunkaas murugadaas xanuun kala bixin kara inaan samayno laakiin ma aanan ku guulaysan hadday aan samaynay mushkiladii xalismi lahayd mushkiladii weli ma xalismin
siyaasaadkeenna iyo boolisiskeenna ku saabsan somalilan iyo gobollada waqooyi guud ahaan dib u eegisaan ku samaynaynaa iyo icaadatu nadar si aan u helno fikir iyo talo iyo ra'yi iyo siyaasad policy walaalahaas qanci kara oo ku qanci kara in ay walaalahood mar kale la midoobaan yaan baadi goobaynaa haddii alla yidhaah waxaan u taagnaanaynaa oo aanan ka caajisaynin geed kasta iyo goor kastaba inaan u taagnaano qadiyaddaas wixii aan habboonayn oo aan dadkaas u qalmin maba ahaba annaga dadkaas aan u qalmin inaan diidno waa u taagnaanaynaa wax kasta oo maslaxadda hooyada iyo aabbaha soomaaliyeed ee carruurta korsanaya ee ku nool gobolladaas miyi iyo magaalaba maslaxad yar ay ugu jirto oo nololeed oo haybadeed oo sharafeed ay ugu jirtane bannaankay naga ooli doonaan haddii alla yidhaah waxaan u taagnaan doonnaa cawo iyo casar inaan baadi goobno oo aan daba kacno oo aanan ka caajisin oo aanan ka wahsan oo aanan ka caroonin haddii kuwa maxaanku idhahdaa garaadkoodu aanu gaarin ay maxaanku idhahdaa hadallo xun ku hadaaqaan waxaan ka tacsiyeynaynaa kuweenna deegaanada kale ku nool ee hadallada aan habboonayn ee hadallada aan laayiqa ahayn ee hadallada aanan u qalmin marmarka qaarkood ay ka soo yeeraan waa ka tacsiyeynaynaa waana ka xunnahay waana ka raalligelinaynaa haddii alla yidhaah kuwaas aan hadda ka tacsiyeynayna u dhigmana waxba ka soo qaadi mayno warkooda haddii alla yidhaah haddaba adigu sidee ayaad u aragtaa kelmaddan ah gobollada waqooyi waxaa leh dadka somalilan ee ka soo yeedhay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyadoo aan ognahay in maamulka waqooyi bari oo keliya uu ka taliyo islamarkaasna uu ka yahay gobollada waqooyi ilaa 45% dhul ahaan iyo sidoo kale xeeb ahaanba sidoo kale gobolka awdal ayaa waxaa si weyn dadkiisu ay markaasi u ayiidsan yihiin midnimada dalka iyo iyaga oo ka horjeeda kala goynta dalka waxaana calaamad u ahayd xasuuqii dhowaan uu maamulka somalilan ugu geystay caburinta dadkii shacabka ah ee ku mudaharaadayay gudaha magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal iyo qaybo ka mid ah gobolka awdal